إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت وحمانتا magaalada berbera kantaroolka dhinaca caasimada Soomaaliland ee Hargeysa uu gaadhay kula dhacay maamulihii kastamka berbera ahaana isuduwihii wasaaradda maaliyadda ee gobolka Saaxil marxuum Cali Axmed Bulbul Allah u naxariistay marxuumku isagoo ka soo guriyay noqday caasimada Soomaaliland ee Hargeysa halkaas oo labada maalintii fasaxayd ku soo qaatay ayaa waxa uu gaadhigu kula dhacay meelaha loo yaqaan jiiftooyinka ee wax yar u jira kantaroolka berbera ee dhinaca Hargeysa marka laga yimaado Allah u naxariistay marxuum Cali Axmed Bulbul waxa uu ahaa maamulihii kastamka berbera labadii sanadood ee u dambeeyay ay xukuumadani talada dalka haysay Allah u naxariistay marxuum Cali Axmed Bulbul waxa si weyn tacsi ugu diray guud ahaanba mas'uuliyiinta kala duwan ee gobolka Saaxil iyagoo ka tacsiyeeyay qarankii uu ka baxay iyo waliba eheladii iyo qoyskii uu ka baxay إنا لله وإنا إليه راجعون علي أحمد بلبل وحنو سيجار وتعسيديننا وريه حمزة علي بلبل أو وها به يجود هامبا تذكر سومالي لان شعب كايو ولبا قرن كاني وكبحي مسؤول كاسي كتر سنة وسارد مالية تعسيب دريا لما عفورتي والدي يو والدتي يو لما أهلكي صاحب كيو علي بلبل وما تلقى قال كل عي إن الله وإنا إليه راجعون أنا لا يقبل إلا إنه إله الحرتي تنصيه أمره قسم كبربراء وصاعد يبر كهر وقالوا كل عي كنترول كاكتيسه وحن تعسود ريا ومدر هير سوماليلاند مانتين كارهان قويسكي وكلنتي وتعسيدين يا تدوينها هير بربراء كان أصدتها وزارة مالية إن إلهي ونحرسه ماموله كسمك علي بلنبل ووحبدن ومدة وسو شقيني وما تشل قاري كل انت قلبتها وغيريودي أيان ودرينا تعسي إن إلهي ونحرسه قبريا إنه نحرسي جنو إنا لله وإنا إليه راجعون قدهان بهذا هون كيبل تيفي أيا يقنا تحسين لمدا أدريا sida gudoomiyaha telefishinka caalamiga ah ee Hon Cable TV Farxaan Xaaji Cali Axmed sidoo kalena waxa iyaguna tacsidaasi la mid ah diraya gudoomiyaha shirkadda Telesom Cabdikariin Maxamed Iido oo isagu ahaa dadkii ugu horeeyay ee soo qaaday meydka marxuumka Allah u naxariistay marxuum Cali Axmed Bulbul mas'uuliyiinta gobolka Saaxil gudoomiyaha gobolka Saaxil Maxamuud Cali Saleebaan iyo xubno kale oo gobolka ayaa u qaaday dhinaca caasimada Soomaaliland ee Hargeysa waxaana la filayaa in subaxnimada lagu aaso halkaasi Cabdikariim Saciid Saalax Hon Cable TV Berbera